Halkan waa shabakada warbaahinta JMN ee laanteeda af Soomaaliga. Wararka JMN waxaad kala socon kartaan barteena Facebooka iyo YouTube-ka. Wararka ugu doorka roon oo maanta idiin hayno waxaa ka mid ah Itoobiya iyo Mareykanka oo gaadhay heshiis dhanka difaaca iyo amniga. Horumarinta wadooyinka ee tuulooyinka miyiga Itoobiya ee ka socoto. Sidoo kale wararkeena maanta waxaad ku maqli doontaan Soomaaliya oo caddeysay mowqifkeeda Qobrus. Wararkaasi oo tafatiran ayaad nagala socon doontaan warbaahinta JMN. Itoobiya iyo Mareykanka oo ku heshiiyey in la sameeyo iskaashi istiraatiijiyadeed oo ku saabsan difaaca iyo amniga. Itoobiya iyo Mareykanka ayaa gaaray heshiis lagu dhisayo iskaashi istiraatiijiyadeed oo dhammaystiran oo ku saabsan difaaca iyo amniga. Wafdi sare oo ka socda militariga Itoobiya oo uu hogaaminayo Major General Tashome Gamachu, agaasimaha guud ee xiriirka dibadda iyo iskaashiga militariga ee wasaaradda difaaca qaranka, ayaa booqday Mareykanka laga bilaabo 19 bisha August ilaa 20 bisha August ee 2026. Waxayna la yeeshay la tashiyo labo geesood ah oo dhigooda iyo hogaamiyaasha kale ee militariga Mareykanka ee Pentagon. Sidaasi awgeeda wadatashigan uu si wada jir ah ay hogaaminayeen Brian J. Ellis, ku-xigeenka kaaliyaha xoghayaha difaaca ee arrimaha Afrika ee Pentagon. Waxay ku heshiiyeen in iskaashiga militariga ah iyo diblomaasiyadeed ee labada dal loo gaarsiiyo heer cusub oo ka sarreeya heerarkii hore. Hogaamiyaasha hay'adda difaaca ee labada dal waxay ku heshiiyeen in la ballaariyo iskaashiga hay'adaha iyo in la xoojiyo isku dubaridka istiraatiijiyadeed. Iskaashiga istiraatiijiyadeed waxaa hagaya tirar muhiim ah oo ujeedadoodu tahay in la hubiyo danaha qaranka ee waara iyo faa'iidooyinka labada dhinac. Dhisidda kalsoonida iyo dhisidda iskaashiga waara iyo kor u qaadista dadaallada wadajirka ah si loo gaaro nabad waarta, amni iyo xasilooni geeska Afrika iyo gobolka oo dhan. Sarreeye guuto Tashome Gamachu iyo ku-xigeenka xoghayaha kaaliyaha Brian J. Ellis ayaa xaqiijiyey ballanqaadkooda wadajirka ah in ay si adeeg ah uga hirgeliyaan qaab dhismeedyada la isku raacay iyo in xiriirka difaaca labada dhinac loo qaado iskaashi istiraatiijiyadeed oo dheeraad ah. Wafdigu wuxuu sidoo kale wada hadallo ballaaran la yeesheen hogaamiyaasha hay'adaha kale ee difaaca Mareykanka. Horumarinta wadooyinka miyiga iyo dhismaha tuulooyinka miyiga ee qaab dhismeedka waa hindise qaran oo loogu talagalay in lagu keeno isbeddel qaab dhismeed oo ku yimaada habnooladeedka bulshada beeraleyda ah ee dalka. Waxaa xusid mudan Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed in uu si rasmi ah u daahfuray mashruuca horumarinta wadooyinka miyiga ee degmada Hamido, gobolka Kambata, deegaanka bartamaha Itoobiya. Sanadka la soo dhaafay ee 2017 tiris taariikheedkan Itoobiya. Rabitaanka xooggan ee lagu doonayo in lagu bedelo nolosha bulshooyinka miyiga ah ee la barbar socda casriyeynta magaalooyinka ayaa ah bilowga mashruucan. Ujeedada ugu weyn ayaa ah in la awoodsiiyo beeraleyda iyo xoolo dhaqatada si ay u gaaraan barwaaqo dhammaystiran iyagoo casriyeynaya qaab nololeedkooda, iyagoo ka baxaya noloshooda dhaqameed ee heer qoys, haddana si loo yareeyo socdaalka ama ka guuritaanka miyiga ee dhanka magaalada, iyagoo raadinaya kaabayaal wanaagsan iyo dhisidda tuulooyinka miyiga ah ee nadiifka ah iyagoo isticmaalaya agabyada isla meeshaasi laga helayo qiimo jaban lagu helayo.
Tan iyo markii la asaasay hindisahan waxaa laga hergeliyey qaybo kala duwan oo dalka ah oo ay ku jirto Halaba, Kambata, Hadiya, Gurafarda iyo deegaanka Koonfur Galbeed ee Itoobiya. Shaqadan horumarineed ee isku dhafan ee ku salaysan casriyeynta iyo mid dabeecadda ayaa muujinaysa in suurtagal tahay in la horumariyo wararka nolosha muwaadiniinta iyadoo aan la wasaqayn dheelitirka dabiiciga ah ee miyiga ah, waana damaanad la isku helayn karo oo loogu talagalay safarka waara oo xiga ee barwaaqada dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in mowqifkeeda ku aadan Qubrus aan waxba iska bedelin kadib markii guddoomiyaha cusub ee Golaha Shacabka Cabdulqaadir Maxamed Nuur uu qoraal uu ku daabacay bartiisa X ku adeegsaday magaca Jamhuuriyadda Turkiga ee Waqooyiga Qubrus. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay 21 bisha Agoost oo ku sheegtay in Soomaaliya ay weli si buuxda u taageersan tahay madax-bannaanida, midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Qubrus. Wasaaraddu waxay sheegtay in mowqifka Soomaaliya uu ku salaysan yahay axdiga Qaramada Midoobay iyo qaraaradda Golaha Ammaanka, iyadoo si gaar ah u hustay qaraaradda 541 ee sanadkii 1983 iyo 550 ee 1984.